السلام عليكم كسر هذا أمير سكشين ما أنتو حالي كيف فايدينيا قراع آدي ومع آدنا وسهلا قرمش لدن معان ذهبي سيدا قروح بدن أي كسو بحذي وموفو قاب عصر لو سميي وحسليد ألو دوبين كالا إسكا أرق موفو النار آدي ومع وعصرية سويي ما شاء الله بأولا دعيسان موقالك إلا ضمات كداودا هدية تامرك هذا أرقتنا like hana la dhaafin dhiirgelinaya inoo tahay noo sheergareeya waa quraac isku dheela tiran ama casho saa jeceshaa ka dhigo insha allah ka faa'iidaysan ku leeyahay ilaa dhamaadka daawo waxyar oo kooban ayaa ka sameeyay maasha allah sidaas dahabiga ayayna ku soo baxday jiileec saa'id waaye kaaliska araan ku dhaa wax maraqna uma baahno shaaxaga cadeyska ayaa ku cabaysa kaaliska araan ku dhaa the whole day قراع يعني سوق iyo wax gaas kugu soo kicinay ma ahan ma sha Allah fresh ahane kaalis ka soo tijaabiyay leeyahay walaalaha qaaliga muuqaalkan ila dhamaadka daawada oo noo like gareeyo oo noo share gareeyo cuntadan yarta quruxda badan ka soo tuurta muufo dahabi qarmash waa ma sha Allah ila socda ila dhamaadka soo tijaabiya baaquli ayaa inta soo dhigtay waxaa ku soo shubaya 1 kiilo bur 500 grams oo xiran yahay laakiin waa 1 kiilo qiyaasta laba xaboona waaye saas oo ogaada okay waxaa kale ku soo darsan doonaa leebitada qiyaasteeda waa qaada buuxdo saa u jeedinbo waxaa kale ku soo darsaday bakin oo wax yar sidoo kale xabad sooda caraf bay ka dhigaysaa dhadhankana way u macaynaysaa ma sha Allah sidoo kale waxaan ku soo darsanayaa sokor qiyaasteeda 2 qaado keliyata ha ku badinin sokorta waxaa kale ku soo darsaday cusbo intaas markaa isku soo dardarti waa is dhaxgalinaysaa marka koowaad isku celcelinaysaa si dhaxdo oo galaan kadib meesha waxay ugu diyaarsan caano iyo saliid caadiga cuntada lagu dubto ama lagu kariyo caanaha koob adiga 3 koob iyo bar waa caanaha aan ku qasi doono saliidana intaas waaye koob halfkiisa wax yaran ka reebtay waxaan marinayaa weelka foornada aan kula gelinayo caanahana koobkan ku soo cabirtay wuxuu u dhigmaa 2 koob marka koowaad intaas ku soo daray gadaalaan ugu soo dardari doonaa inta kalena which is 3 koob oo caano okay meeshan muufayaro qurux badan oo dhadhan macaan la ayaa ka soo bixi doonto ama ceesh soo taqaan waa ka saad soo jeedinbo isku celcelinaya si fiican isku dhaxgalinayaa stiil waxaa noo dhiman caano waxaa rabnaa sida canjeelada camal in isku dhaxgasho dhiiqo noqoto ma garatay lama rabo inay maxay sida chapatiga camal u qastid just inuu iska jilcaa la rabaa waxaan ku soo darsaday wax yar oo biyo soo jeedin biyahana qandac waaye caanaha 2 koob ay hayeen koobka saddexaadna biyo waaye sababtuna waxa waaye waxa inuu jilcaa la rabaa tan kalena waxa la rabaa inuu maxay ahaydey sida canjeelada camal sidaas noqoto xataa waa garaacaysa si kuuskuusi wax u lahaanin simple saa wax loo sameeyo garanaysan Soomaa muufo waa ceesh ma dhigi karno sababtuna muufada saana loo qasaa ceeshka waxa waaye waa la yar adkeeyaa Soomaa marka waa kaasa muufo qaab casri oo sareyso waayde aad iyo aad u macaadna u sahlan soo shabeedin leeyahay idinka hordhici muuqaalka hadda waa kaasa waa soo qasay waxa weeye gacmaha iska soo dhaqayaa baaca soo qaadanaya korka ayaan dhab uga soo siinayna insha Allah waxaan rabnaa inaan meel iska dhigno oo maxay idin noo soo qamiirto marka koowaad waa kana bacdiyaan soo qaatay soo saaray saxweena soo qaadanaya waa soo dul saaraya aduu waxa ka magnaanaya 30 daqiiqo inta iga soo qamiiraysa ku xiran tahay okay waa kaasa insha Allah weyn isku soo laabanina inta inoo soo qamiirayso waa kana markii soo qamiirtane 30 daqiiqo kaamil ayaa ka magnaa oo jeedinada si sugi la xataa way si qamiir leed way daadan leed on time oo imaaday ma sha Allah oo jeedinada waa hada bacdiyan ka qaadaya intaasna waa ka tirtiraya
kadib waxaa waaye sidaa yeelena waa arki doontaan. bacdii saxda ahayd ma ahan oo intada lagu daboolayay, just bac qafiif caadi ah inta soo qaad soo kala jaray. marka waa kaasaa hadda waan isku celcelinaa gacmahaadana biyo mari marka isku celcelinaysid si kugu dhegdhegin. kadib waxa weeye saxanka foornada la gelinaya ayaan soo qaadanaya, saliida soo marinaya, kadib alaabtaan haaf ku gadinaya, haaf kalena waa xawaay saxanka kale ayaan ku shubaa. 2 saxan oo noocaan ay taalo, marka haaf iyo haaf ka kala dhiganaya. burka ma rabi in hal mar inta kusoo gadiyo hadhowda waxay noqonay gudaha inay ceerin kala haato markay soo karto hadii aan burkaan dhan inta ku gadiyo. marka qafiif baa ka dhigaysaa si oo maxay maasha Allah kugu soo baxo. 2 qaybood baana ka dhigay. saxanka saliid ayaan mariyay, kadib waxa waay gacanta biyo yaraan ku taabanaa oo ku sii fidinayaa. adoo saamuuf u dubi leed waa taqaanaa Soomaa, sidaas lee waaye. birtaan caadiga foornada kula galin rabaa, saas darteeda ayaan maxay u marmarinayaa. kadib markaa sidaas soo yeelay xameesh yaalo xabad ukun ah iyo xabasuudadii hadayt u jeedeen. qaybta labaadan ka dhigayaa isla saxankan oo kala meesh yaalo ayaan asagana ku dubeynaa. xabad ukun ayaa inta ku soo jabiyay, kadib waan isku qaseynaa si wacan baa isku qaseysaa. markaad isdhex galisidna alaabtaan ayaad maxay korka ugu soo daadinaysaa oo sidaas ayaa ugu brasheynaysaa ama ku soo daadinaysaa saasa ugu brasheynaysaa waa marmarinaysaa gees to gees. waxay ka caawinaysaa inuu maxay karmash oo qurux badan noqdo, kalar qurux badan yeesho. sidoo kale hadaarto wax yar oo sokor korka ugu soo daadin kartaa si dhadhan kugu sii macaanaado, laakiin aniga sokor kuma soo daraayay. hadhowti malab ayaan ku cunaynaa insha Allah. saa u jeediinbo wax yar xabsuuda ayaan ku soo daadiyay. xabsuudada ha ka yaabin inay ka haleys caraf iyo wuxuu ka qaadayaa yani dhadhan macaan badan maasha Allah. hadda foornada way ii sii shidneed, waan gelinayaa 35 daqiiqo ayuu ku jirayaa kor iyo hoos weeye. intaas shaax yaraan ka soo tuuranaya intuu iga sii karaayo. biyaa meeshaan ku soo shubtay shaax yar oo simple ah oo lagu cuno alaabtaas. okay shaax waxa weeye 2 noocood loo sameystaa, marna caana la hormarsiya, marna biyaha saa jeceshaa ka dhiganaysaa. waxaan isku soo daray biyihii, biyihii, caleentii, sanjabiishii iyo maxay sokor yar, kuma badin sokorta. kadib waxa waan isku dhex gelinayaa. markuu hal mar ii soo buro caana meesha yaal 3 caane korka ugu soo daadinaya. saas la caani shaax u karsada simple and easy, wax waqti badan ka qaadanaysa ma la sugsugaayo. just waxa weeye markuu karane horey ha kaga shubin tarmuushka, wax yar la dhigaysaa si maxay si fiican dhaxdiis kaga sii galaan caraf u noqoto. sanjabiisha si fiican salka uga gasho maasha Allah. marka caanaha ku soo gudinayaa hal mar la sugaa intuu ka soo buraayo. andaas shaax cadeys sidaas oo kariya maasha Allah. waa ka saay wili waa hada hal mar markuu soo buro dabkan ka sii daminayaa. waa yara waqti aan rasiina adii 30 daqiiqo camal ama 15 daqiiqo waan la dhigayaa. hore ka macabi inta badan تكلن شاح كل مجعل يعني شاح قندع مركويا آدو جعله مركوا كاسا شاح حجاز كديجينا وحاوسوا لابتي فرنا كجرتي ما شاء الله تبارك الرحمن سيدا قروح بدن ذهبي جاء أي كصاب حدي لقى مشيكين كران كده عرف واو إن بعادي معان alaabtan korka ayaa malab ugu soo daadinaysa waad jarjaraysa caruurtaada adiga dhammaan familka way ka wada helayaan hubaal weeye quraac dhameystiran waaye uma baahno maraq xataa alaabtan wax yar oo malab ayaa korka gab ugu siinaysa qof walba iyo jabkiisa ayaa siinaysa shaaxiis cadeyska subaxii caruur hadii iskoolka aadeysane ayagana waxa weeye qaybahooda lunch boxkooda ugu ridaysa dee lagama sheekeyn karaan ku dhahay inaba caadi maan caraf dhadhan macaan qurux way dhameystiran tahay ka hadal ma leh muuqaalkan waxaa idinka codsanahay haddii aad dhammaysateen like-ta hanala dhaafina walaalaha quruxda badan noo sheer garee inta awoodo shaaxaaga cadeyska soo qaado qac ka siiyaan ku dha alaabtan xataa haddaa tahay hooyo nuujinayso way ku anfacaysaa maasha allah tabaaraka araxmaan soo tijaabiya kheyr caafimaad baa idin rajeynaya wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gabar walba oo maqlaysa codkaygana hays ilaabin hays dayicin hays dulleynin hays hoosaysiinin
ha isla yaraanin oo ha isliidin sida aad isu aragtid ayuunbuu dadkuna kuu arkayaa gabadh yahay cilmiga maadiga ah ee aad baratay ka diiniga ah ku ladho si cilmigaagu isu dheelitiro isuna dhammaystiro caqligaagu kuugu filnaado haba fakarkaagu u cudoonaado hadalkaagu uu micno u yeesho dabar dambiyada kaa xadeeya aad u hesho akhlaaqdaaduna ay u dhammaystiranto gabadh yahay xuquuqda diinta ku siisay tira ku hayso ka hor inta aadan ku doodin in bulshada inta kale xuquuq kaala maqan tahay gabadh yahay naftaada danayn gaar ah iyo mid guud labadaba siiso ka hor inta aadan nafa kale ka raadin daryeel jacayl iyo danayn inay ku siiyaan intaba xasuusane ma jirta cid ku siin doonta danayn daryeel iyo jacayl haddii aanad adigu isjeclayn caadada iyo gabadhnimo